runtii waxaan aad iyo aad idinku mahadnaqayaa sida ballaaran ee u soo dhaweyseen wafdigan uu hogaaminayo mudane muuse biixi cabdi xilli cadceedo weeyaan in badan hadal badanna waa la yidhi anigu laba kelmadood baan ku daraya deegaankani waa deegaan ballaaran waa deegaankii bayska noo ahaa ee taageerada xagga siyaasadda aanu ka bilownay maantana deegaankii dee waanagii digarogaynay waad nala digarogateen oo si wanaagsan baa noo soo dhawaysan oo aana sharaftay ilaahay aydan sharfabaad ilaahay horta ka badan anigu aad iyo aad baan abaal badan baan idii haynaa waynagii tashannay inili cabdishakuur iyo xildhibaankeenii kala sheek ka soo baxay oo waynagii ku guulaysanay siyaasaddana waynagii midaynay berigii hore waynu isbarbar carari jirnay oo xildhibaannimo maynaan yeelan jirin soo ma xasuusataan waynagii dadka kala reebnay waynagii nidhi dadka saasaa loo nidaaminayaa loo soconaya ilaahay waynuu guuleeyey oo dee waa kuwa xildhibaanna laba xildhibaanna ay ka soo baxeen deegaankan markii dambena uu cabdishakuurna dee ku guulaystay inuu noqdo haddana meeyarka magaalada berbera dadkiinani waxaad tihiin dadkii bayskaasi aanu halka ka soo baday utunta waxaan xasuustaa somalilan waxyaalahaan ka bartay waxaa ka mid a reeraha kale inta badan waxaa la yidhaha qabyaaladda afka lagaga dhowraa laakiin reeraha kale waxay ku odhanayaan haddaanad reerkaaga wadin adeer hanoo imaninka bay ku odhanayaan marka ugu horaysa hadda waa marka ugu horaysaba markaa halka ugu hoosaysa horta ka soo bilaabaysaayo oo ilaa halkana ka soo bilaabay oo markaas haddana socday oo markaas haddana halkan reerkii kale u sii tagaysaa reerkii kale u sii tagaysaa oo waxyaalaan bartay oo dee waxa weeyaan waana contradiction oo Somaliland waxaana koonay qabyaaladda joojiya haddana waxa koonay waa reerkaaga soo kaxaysatay ayaga doo dhibaatada jirta weeyaan waana sababta uu Cali gur halkan uga hadlayay iyo dadka kale ay lahayn waa muhiim horta Muuse inuu reerkiisa oo dhan isku dibrito si reeraha kale uu xusiya soo sidaas ma aha waa siyaasadda la doonayo mustaqbalka in wax laga bedelo oo inkastoo aynu dad nahay reeranahay dad wada maaragtay reer Soomaaliland wada nahay is wada jecel insha Allah waxaan ka rajaynayaa in mustaqbalka qofka lagu qiimeeyo wuxuu yahay wuxuu soo qabtay wuxuu qaban doono dadka miisaanka la saaro qof walba oo aqoontiisa waay aragnimadiisa dadnimadiisa shakhsiyadiisa iyo wuxuu soo sameeyay lagu qiimeeyo dawada ogeedana inagu xisbiga wada baynahay waa ka soo guuray cid baynu soo saaranay cid baa la inaga dhacay ya maalin cad baa la dhacay haddana maynaan qaylin oo maynaan oran dalka ayaa khasal galeen marka qolooyinka baarlamaanka la yaabanahay oo waxa la yaabanahay waana dhago musharax madaxweynaha nala dhacay oo nala waxba oran haddana ay iska aamusan ilaa wana aamusan karay war hadli karayna waxa haddii aad tolaay ku dhufto dalka waxa khalban galin karayaan markii laakiin haddana waan ka daayay oo waan dhooray oo waxaan eegay waxa la isu yahay in nabadgelyada dalka ayaan waa loo tura maanta qolooyin baarlamaanka inta waxa saxiyaan oo ay hambaliyeeyaan haddana maanta daba la soo fariistaa sidaa ma ahayn war wax laga xishoodo weeyaan baa leeyahay iyadoo haddii laga helo hambaliyeysay waa la iska daayaa baa leeyahay dad la dhacay baa sharaxnimo madaxweyne laga dhacay baa iska aamusay idinku aamus ku hadli lahaa ma tiidin baa leeyahay ayaad leeyahay waxa Somaliland waxaan u baahanay inaan eegno oo aan dhoorno nabadgelyada aan dhoorno oo aynan iska maartay iska dumin nabadgelyada anigu waxaan eegay waxa dalka dan u dhax in badan hal eedayo hal yiraahdo waa qabyaalado sidan uu ku taageeray Muuse oo sidan isu yihiino anigu waaban qolooyinkan u daneynayay in jabkayga ayuu ka mid ahaa Muuse haddana laakiin waxaan eegay wardanta ayaan eegay qaranka waxa ay ku jirto waana la liqaa waxaaga oo marka aad siyaasi tahay waa inaad ogaataa marka baashu xilliga u socoto xilliga la jiifsado xilliga la soo kaco haddaad laakiin la soo qiyuurnaatid oo la soo taagnaatid waa tayda iyo tayda mooye tigla ma jirto daadar waxba ku socon maayaan marka xilligan waa xilligii ninka odayga in badan buu gabiye ka soo dhacayay oo aniga waa iga horeeyay oo isaga laftirkiisa dhibaatooyin badan baa soo maray ya marka isaga ayaynu insha Allah aynu dhisaynaa
reer Soomaaliland waxa leeyahay war Soomaaliland wuxuu u dana hal la eego ninka kale ee la tartamaya anigu aanu arko Cabdiraxmaan waa nin sharaf leh anagu sida qolooyinka la joogay isaga sida musharax ayaga ay u maartay u dhibaateynayaan ay u caayayaan anagu u caaymayno xaraan weeye marnaba Cabdiraxmaan Cabdilaahi Cirro waa nin sharaf laban leenahay waa nin oo qalman leenahay laakiin waxa la indaanu kaayaga ka wanaagsan nala eega ayuun baan leenahay wax kale ma lihi ya taasina ceeb ma aha وانا ترتك حلاشة بيكون جرتا قفل بنو حويجي قف السيد وحوضنا ويجي إذا كانوا واحد الله هاي سيد قيمة له الشرفت له وناجي له أصاب بحذين لا أنا قلت لك جاي شرفتين هذا موسى أصاب بحذين وأنا جاي شرفتين عبد الشكور ما شرفتين وسياسيين تي هراء شرفتين deegaanka siyaasiin waaweyn buu lahaa oo odayaal oo armiye iyo dhaqaaqo iyo rag waaweyn baa halka ka soo baxay waxaan xasuustaa armiye Allah u naxariistay ayaa markuu ka hadlaayo maartay uu badin jiray oo nation buu ka dhigi jiray sahal people buu oran jiray dad wuxuu ka dhigi jiray laakiin wadan oo kale ya waxaan u malanayaa maanta waa ismuujiseen runtii ya maanta waa ismuujiseen ilaahayna waxaan uga baryayaa in aynu ducayno aynu maartay dhamaanteen u ducayno musharaxa aan waxaan garanayaa xanuunka ay leedahay musharaxnimadu maartay mid ciyaara maaha waxa weeye waa mid loo baahan yahay inaan kulligeen garab istaagno qof kasto maartay dadaalaya muusana waa soo dadaalay waana xilligiisii imikana waxaan u dhiibi doonaa Cabdicasiis Maxamed Samaale oo ah nin aad iyo aad u qiimo badan wasiir qiimo badan nin sharaf leh isaga guddiisa u tanaasulay muuse oo madaxweyne nin u taagnaa waa la tarkiisu marka aadar meesh madaxweyne yaalba marayay iska ilaaliya assalaamu calaykum